Assalaamu calaykum. Daawadayaasheena sharafta leh, maantana waxaan idiin soo gudbin doonaa qisadii saddexda nin ee uu Alle Subxaanahu wa Tacaala imtixaamay. Waa qiso cajiib ah oo ku cibro qaadasho mudan. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu nabigeena Muxammad sallallahu calayhi wasallam asagoo la fadhiya asxaabtiisa ridwaanullaahi calayhim wuxuu u sheegay qiso cajiib ah oo aysan horay u maqlin qiso la mid ah. Wuxuuna yidhi, waxaa jiri jiray 3 nin oo ka mid ah reer banu Israa'iil oo ah carruurtii Nebi Yacquub calayhi salaam oo sidoo kale lagu magacaabi jiray Israa'iil. Mid walba oo 3da nin ka mid ah wuxuu lahaa cillad iyo cudur. Mid wuxuu lahaa baras, waxaa xumaaday maqaarkiisa iyo midabkiisaba. Midna wuxuu lahaa bidaar oo madaxiisa tinba kuma oolin. Kan saddexaadna wuxuu ahaa indhoole oo waxba ma uusan arkaynin. Wuxuu Alle Subxaanahu wa Tacaala doonay in uu imtixaamo oo uu tijaabiyo si loo kala ogaado midka Alle u shukrinaya iyo kan ku kufrinaya. Wuxuu Alle Subxaanahu wa Tacaala u soo diray malag ka mid ah malaa'igtiisa, wuxuuna isaga dhigay qof bani aadam ah ama qof bani aadam oo kale. Malaggii ayaa wuxuu u tagay ninkii baraska lahaa, markaasuu ku yidhi, maxaad adduunka ugu jeceshahay? Wuxuu ninkii ugu jawaabay, waxaan ugu jeclahay maqaar wanaagsan iyo midab wanaagsan. Waayo dadka ayaa i dhibsaday, waana la i takooray, xishood ayaa i dilay. Waxaan jeclaan lahaa in uu maqaarkaygii sidii hore igu soo laabto. Malaggii ayaa korkiisa masaxay, markaasuu xanuunkii ka tagay, waxaana la siiyey maqaar wanaagsan iyo midab qurux badan. Markaasuu malaggii mar kale weydiiyey, xoolo maxaad ugu jeceshahay? Wuxuu ugu jawaabay, waxaan ugu jeclahay geela. Markaasuu malaggii siiyey hal geela oo riman ama uur leh, wuxuuna ku yidhi, Allah ha ku barakeeyo. Kadibna malaggii wuxuu u tagay ninkii bidaarta lahaa oo timo la'aanta ahaa, wuxuuna ku yidhi, maxaad adduunka ugu jeceshahay? Wuxuu ugu jawaabay, timo wanaagsan iyo in aan bidaartan ka bogsado. Dadka ayaa igu dhibsaday, wayna igu takooreen. Malaggii ayaa gacantiisa madaxa uga masaxay, markaasay bidaartii u bogsootay, waxaana la siiyey timo wanaagsan. Markaasuu ku yidhi, xoolo maxaad ugu jeceshahay? Wuxuu ugu jawaabay, waxaan ugu jeclahay lo'da. Wuxuu siiyey sac riman ama uur leh, wuxuuna ku yidhi, Allah ha ku barakeeyo. Kadibna wuxuu malaggii asoo leh suurad bani aadam ah u tagay ninkii indhoolaha ahaa. Markaasuu ku yidhi, maxaad adduunka ugu jeceshahay? Wuxuu ugu jawaabay, waxaan ugu jeclahay in uu Alle Subxaanahu wa Tacaala araggayga ii soo celiyo si aan wax u arko. Malaggii ayaa indhaha ka masaxay, wuxuuna Alle Subxaanahu wa Tacaala u soo celiyey araggiisa. Wuxuu weydiiyey, xoolo maxaad ugu jeceshahay? Wuxuu ugu jawaabay, waxaan ugu jeclahay ariga. Wuxuu siiyey ri riman ama wuxuu ku yidhi, wuxuu siiyey ri irmaan ah, wuxuuna ku yidhi, Allah ha ku barakeeyo. Muddo ka bacdi wuxuu Alle Subxaanahu wa Tacaala mid walba u barakeeyey xoolihiisa. Mid walba wuxuu haystaa xoolo fara badan oo noocuu doortay ah. Kii baraska lahaa wuxuu haystaa geel fara badan. Kii bidaarta lahaana wuxuu haystaa lo' fara badan. Kii indhoolka ahaana wuxuu haystaa ari fara badan. Waxaana la gaaray xilligii la imtixaami lahaa oo la tijaabin lahaa. Waxaa u soo laabtay malaggii. Mid walba oo ayaga ka mid ah wuxuu u tagay asagoo iska dhigaya in uu qabo cudurkii uu qabi jiray, si uu u xasuusiyo nicmaduu Alle siiyey Subxaanahu wa Tacaala. Wuxuu u tagay ninkii ugu horreeyay asagoo iska dhigaya qof musaafir ah oo xanuunsan oo baras qaba oo faqiir ah. Wuxuu ku yidhi, waxaan ahay qof miskiin ah oo musaafir ah, waxaana iga go'day sahaydaydii aan watay. Qof kale oo Alle ka sokow aan ku badbaadana ma jiro oon adiga ahayn.
allihii ku siiyey midabkan iyo maqaarkan quruxda badan iyo xoolahan faraha badan dartiisa waxaan ku weydiisanayaa in aad i siiso rati aan safarka ku sii raaco si aan ciddayda u gaaro. Wuxuu ugu jawaabay, xuquuqo badan ayaa la igu leeyahay, waxba kaama siin karo. Wuxuu ninkii faqiirka ahaa ku yidhi, waxaad ila eg tahay qof aan garanayo. Miyaadan ahayn ninkii faqiirka ahaa oo baraska lahaa oo dadku dhibsan jireen oo Alle taajir ka dhigay? Markaasuu ugu jawaabay asoo been sheegaya, xoolahan waxaan ka soo dhaxlay ab ka ab. Wuxuu ku yidhi, haddaad been sheegayso sidaadii hore Allaha kugu celiyo. Wuxuuna ku habaaray in uu Alle subxaanahu wa tacaala sidiisii hore ku celiyo. Alle ayaa xoolihiisa kulli ka qaatay, wuxuuna ku celiyey barasle faqiir ah oo dulli ah. Malagii wuxuu haddana u tagay ninkii labaad asagoo iska dhigaya qof maskiin ah oo timo lahayn. Wuxuu ku yidhi sidii uu ku yidhi ninkii koowaad, waxaan ahay qof miskiin ah, sahaydii ayaa iga go'day, Alle ka sokowna qofna ma jiro qof kale aan ku badbaado oon adiga ahayn. Allihii ku siiyey timahan quruxda badan iyo xoolahan faraha badan dartiisa waxaan ku weydiisanayaa inaad i siiso ari aan ciddayda kula sii laabto. Ninkii bidaarta lahaa wuxuu ugu jawaabay sidii kii baraska lahaa, wuxuuna ku habaaray, haddii aad been sheegayso sidaadii hore Allaha kugu celiyo. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa xoolihiisa ka wada qaatay, wuxuuna ku celiyey bidaarle aan timo lahayn siduu ahaaba. Waxaa soo haray ninkii indhoolaha ahaa. Malagii ayaa u tagay ninkii indhoolaha ahaa isagoo iska dhigaya nin miskiin ah oo indhoole ah. Wuxuuna ku yidhi, waxaan ahay nin miskiin ah oo musaafur ah, sahaydii ayaa iga go'day. Alle ka sokow maanta qof kaloo aan ku badbaadona adiga ahayn ma jiro. Allihii araggaagii kuu soo celiyey dartiisa waxaan ku weydiisanayaa ri aan safarka ku sii maro. Wuxuu ugu jawaabay, waxaan ahaan jiray indhoole, Alle subxaanahu wa tacaala ayaa araggayga ii soo celiyey. Waxaan ahaa faqiir, Alle ayaa hodan iga dhigay. Xoolahayga waxaad doonto ka qaado. Ilaah baan kugu dhaariye, Ilaah dartiisa aad maanta wax ii weydiisatay. Ilaah baan ku dhaartee, Ilaah dartiisa maanta waxaad iga qaadato kaama celinayo ama kaama celin doono. Wuxuuna u oggolaaday in uu qaato wuxuu doono oo maalkiisa ka mid ah. Malagii ayaa ku yidhi, xoolahaaga hayso, waa la idin imtixaamayey, Allena waa uu kaa raali noqday. Labadii saaxiibadaada ahaa oo ah kii baraska lahaa iyo kii bidaarta lahaana waa uu ka carooday. Xadiiskana wuxuu ku sugan yahay ama ku soo arooray kitaabka Imaamu Bukhaari raximahullah. Qisadan waxay inoo caddaynaysaa in qof walba oo bani aadam ah la imtixaamayo, waana qadar aan laga baxsan karin. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ku imtixaamaa dhereg iyo barwaaqo ama culays iyo dhibaato, khayr iyo sharba, si loo kala saaro kii wanaagsan iyo kii xun iyo kii runlowga ah iyo kii sharlowga ah. Allena subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. imtixaankuna wuxuu la eg yahay hadba inta addoonka iimaankiisa uu la eg yahay. Sacad bin Abi Waqaas, Allah ka raali noqdee, waxaa laga wariyey in uu yidhi, waxaan idhi yaa rasuulallah, dadka yaa ugu imtixaan adag? Wuxuu yidhi, waxaa ugu imtixaan adag ambiyada, kadibna saalixiinta, iyo qofba uu ka iimaan weyn yahay. Qof walba waxaa la imtixaamaa inta diinkiisu la eg yahay. Hadduu yahay qof diinkiisa ku adag, oo imtixaankiisuna waa uu siyaadayaa. Haddii diinkiisu jilcan yahayna waa laga khafiifiyaa. Addoonku in la imtixaamo kama zuulo ilaa uu dhulka ku socdo asoon waxba dambi ah lahayn. Waxaan filayaa inaad ka hesheen qisadan. Haddii aad ka heshay, fadlan taabo like-ta, asxaabtaadana u sii share garay. Hana iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad noo dhiirigeliso.
gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.